xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu guddoonsiinayay shahaadadii qalinjabinta dufcadii lixaad ee sanad dugsiyeedkii 2010 iyo 2011 ee markaska Khadiija ee dacwada iyo hanuuninta magaalada Laascaanood. xafladan oo ka soo qayb galeen maamulka iyo guddiga macadka ayaa waxaa ka soo qayb galay culamaa u diin waxgarad odayaal iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood. ardaydii lagu guddoonsiinayay shahaadadii qalinjabinta macadka ayaa tiradoodu ahayd 190 arday isugu jira inamo iyo hablo 70 wiil iyo 120 hablood iyadoo ay ardaydani ahaayeen kuwa aad iyo aad u doomay ayaa ka guddoomay maamulka iyo macallimiinta guddoonsiisay shahaadadii qalinjabinta ahayd Sheekh Cabdinaa fadhiga wanaagsan lagu soo gabagabeynayo barashadii macallimiinta sanadka socotay gabdhaha qaarkood dhamaysteen oo hadda u diyaariyeen inay furqaan iyo xeelka gudbaan إلى وحده علينا سبحانه وتعالى يوم بشي رمضان خواتمتي هذا إن شاء الله تعالى يسوع إلى يوم الإنسان أن يقربه صلى الله وسلم عليه واختار الله أن يصنع رسولك يعود بشرع الله تعالى رسولك صلى الله وسلم عليه باشر علم شرع أوائل مكملين العلم فريضة على كل مسلم علمه واجب كله فقط مسلما رجال ونساء فليكن أطاع أو يوم يستدون يعني إلى في إثمان الرقم والحق أبيضا والحق رسوشا وعن فرض أرضنا الحق إلى كل ابتداء وقد أرض في أمر معلمين ومامرك أوتي أيضا إن شاء الله يعلم الدين إلى أي أمر كيو أو شريعة الكودة أي يكون في دليل الآية بجاء بتشاء ويكون نقطان هو تعالى خديجة لولينا وهذا في رسول الله وحريان إلى ذلك الذي نحره ووقتي أيسوف الأعلام ويكون بالتان ويكون معه الأيسكان وهو الله صعبه هذا هو شرعه وهم يرجع فإن تجدوا معه قيامه من جانب لم يأيسن وذكر سنة أو يغير هذا لكن السوء دي أجسام إلى حتى لو يكون شيء ما حتى لو يكون إلا يكون مواصفات اجتماعية ولوية كونها عندي إلى سنة ولا وإلى الإنسان وعنده أحسن ولا maamulka macadka Khadiija Xuseen Macallin Ibraahim ayaa nooga warramay xaaladda macadka isagoo sheegay in macadka uu yahay macad hoose dhexe leh shahaado caalami ah. maamulka ayaa sheegay in macadka Khadiija ka go'an yahay inuu dadaaladii iyo dardargelinta waxbarashada gobolka Sool ee looga bartay inuu si laba jibaaro isagoo bixiya dhammaan noocyada kala duwan ee fanuunta diinta Islaamka. waxa uu macadku haystaa macallimiin khibrad dheeraad u leh waxay dadka barayaan ayuu ku soo gabagabeeyay maamulka macadka 2004 kadib markii baahiyo maraakis dumar aynu helnay aynu u dhacday oo madaaris aysan jirin maraakis noocan oo kale khayr allah siiya Sheekh Maxamed Idriis xafidahullah oo fikrada inoo qaaday أنا الله سبحانه وتعالى نرى معه كلها وكعلم لها وحوي إلهي الله سبحانه وتعالى إجلس هذه مع الخليجة والشقوين
oo barashada diinta lagu barto gabdhaha iyo wiilasha ay ku bartaan xafladooda maanta la qabanayo ilaahay inay u mahadnaqaan baa la rabaa maamulkii iyo macallimiintii dadkii ku dadaalayay inay u mahadnaqaan qofka aan dadka u mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqa baa la yidhi mahadnaqa waxaa ugu weyn cilmigii laydin baray midhigiisii inuu idinka muuqdo oo aad ku dhaqantaan oo aad sii wadaan oo aad faafisaan oo aad noqotaan kuwii dadka ugu yeedhaya diinta islaamka gabdho daaciyaad ah ama yeedhayaal